khadra waxa jirta dadku badana waxay leeyihiin cadaadiska koobaad ee ku dhacay fanaankanu waxa uu ka yimi xagga familigiisa ayuu ka soo bilaabmay oo loo soo dhex maray oo dil in isaga la dilayo xataa loogu hanjabay hadii kala deynankooda ay qabsadaan sheekadiina laga qaaday dhinacii fanaanimada oo qof qula lagu celiyay familigiisana ay ka soo bilaabantay arintaas wax ma ka ogtahay way jirtaa nimanka la sawiranay sawirka saarani waa niman ilmaadeeradiya oo maxay tole mashruuc ku soo qaatay xamarna laga soo abaabulay oo leeydi TV-ga Universal noo keena maxamed annaga maxay tole halkan ha ka yiraahdo maxay tole wixii uu lahaay Soomaaliland yiri waan kaga noqonayaa muraayadiin maxay tole waxaan sitay hadalkii suuqdiga ee la is oranayay laha wax in Soomaaliland ka noqoshadeeda uu kaga noqday waxa way uu leeyahay waan ka noqday nin waxaan nin Soomaaliyeed baanahay fanaan Soomaaliyeed baanahay waxa weyn arrinkaasi mashruuc buu ahaa nimanka ay ilmaadeerka yihiin ee ugu tagay ayaamada dambe dhan waday ayaa ka dambeeyay oo arrintaas sameeyay waana arrin qaldan bay ahayd waxa weyn maxamed Saciid Biike hadii loo aanaynayo dawladda Muuse Biixi inuu ma taageero maxay tooleeyeen dawladda wuxuu taageeraa calankiisa iyo wadankiisa Somaliland Muuse Biixina de waxa weyn hortiibuu heesayay maxay tooleeyeen Biike hortiibuu heesayay ilaa maalintii aan isbaranay maxamed Biike uu sogsa yimid ilaa maalinka maanta heesa wadaniga ninka ugu heesaa wadaniga badan weeyaan waxa kale iyaguna aan halkan ka cambaaraynaya nimanka fanaaniinta ee reer Somaliland ka soo jeeda ee ninkaasi iyaguna sida qaldan wax ugu dhigaya ee baraha bulshada ka soo caayay ka soo cambaaraynaya waxa weyn waa arrin aad iyo aad u fool xun runaantii aadna waan uga xumahay waxaan aad iyo aad u cambaaraynaya TV-ga la Universal TV iyo TV-ga xun ee aan wanaagsanayn ee isaguna in maxay tolay kiisi iyo dalkiisi ku kuyada iska kicin kari waayay ee la yiraahdo SSTV waxa weeyaan ninkii tiisaba dareerato kala ku darabaa leeydi Soomaalida waxba uma qabanaysaan oo waad maalin walba leedinku Nairobi lagu laayo Soomaalida lagu dilo lagu baadilo maxay Saciid Biike aad ka soo riyoteen marka Soomaalida sheegaysan waa tee Soomaalida sheegaysan TV-ga Universalna waxa weeyaan maxamed Saciid Biike uu ku gafay maxkamad baan u saaray TV maxay tahay xaruntiisa la dhan ayuu maxkamad ku saaray waa inuu raali gelin bixiyaa dawladda iyo shacabka Somaliland waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan Universal TV marka waxayeen dadka reer Somaliland oo xubsiima halbaa la siisaa hubsada xitaa hadiiba uu inuu hadalka uu ka dhacay waxa TV qaran baynu leenahay muxuu ka doo maxaa loo geeyay TV-ga Universal maxaa loo geeyay Universal qarannimada Somaliland uu ka soo horjeeda waana caddahay marka wax weeyaan waa in lacag la soo siiyo mashruuc ku qaadatay mashruucana qof walba uu og yahay in maartay laga soo masruufo lacag laga soo diro waxa jirta dadka dhalinyarada warbaahintu kamid tahay dadka socialka isticmaale ku caanka kamid yihiin dadka inta badan reer Somaliland caanka waxaad moodaa inay iskaga dhex jirto nacaybka madaxweynaha cidii aan nacay jeclayn amba mucaarid ku ah iyo ka Somaliland sidoo kale kuwa xisbiyada mucaaridka soo taageeray amba warbaahinta amba fanaaniinta amba dadka socialism-kana wax kasta in xageeni laftigooda laba side ay kala noqotay oo sidaad sheegayso kala loolanayo Biike Muuse jecel yahay hebel kalena Ciru jecel yahay miyaan marka la oran karin dhexdeennay munaafaqada noocan ka abuurantay ma arrintaasi way jirtaa kala qaybsanaanta bulshada waayo waxa weyn horta dadka miidiyaha Muqdisho ka hadla intaan anigu ogahay dadka miidiyaha Muqdisho ka hadla maaragtay social media ku jira waxa weeyaan project bay leeyihiin waxa la siiyaa lacag baa la siiyaa ay kaga hadlaan propagandada iyo niyad jabinta dadka reer Somaliland iyo sidii reer Somaliland la iskaga horkeeni lahaa dadka imika maxamed Biike arrinkeen sida ugu sameeyaan waxa weeyaan waa dad doonaya in maaragtay maxamed Biike in colaadda xisbiyadu isku qabaan kaga faa'iideysanaya weeyaan waana wax jira runtii marka in qadiyadeeni aynu ku dhaafsano maxay tolay in reernimo
oo ilmihii reernimo lagu toorjargeeyo nimo reerkooda inta loo soo diro la yidhaahdo maxay tolay ninkani wuxuu ka soo horjeedaa reerkeenuu ka soo horjeedaaye oo muusuu taageersan yahay waa inuu ka noqdaa arrinta maaragtay Somaliland uu ka noqdaa waa ayaan darro inteeda leeg aad iyo aad baan uga xumaay inay kala garan waayaan qarannimada Somaliland iyo xafiltanka xisbiyada ka dhaxeeya waa arrin aad foolxun runaantii waana ka xumahay wax weyn Muuse Shaliib uu yimid way tagayaa Cabdiraxmaan Cirraa iman kara Faysal baa iman kara Beritoole waaye marka maanta ummadii sida loo kala fogay lahaanayn waayo maanta intuu Muuse joogo madaxweynaha Muuse Biixi uu joogo 3 sano u harsan wixii ka dambeeyay nin kala imanaya waaye waayo cidu ka doonaya marka ummadii saa u kala qoqobantay ki qadiyadeeni aynu ku baabiinayno in wadama kala aynu ku baabiinayno waa maxay waxaynu doonaynaa waayo cid la xukumi doona Beritoole waayo marka waxa weeyaan anu waxaan doonayaa dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada reer Somaliland war kala saara qabyaalada iyo xisbiyada iyo maxay tolo qarannimada Somaliland in la kala saaro ayay tahay qarannimada ada iska leh qabiilkana reerkiini weeyaan isku gartabaa leeyahay laakiin inaad qabiil aad u dumiso qarannimadaadii oo meel aan waxba ku oolin oo 60 sano ka hor lagu kala tagay oo dhibaato idinka soo gaadhay inaga soo wada gaadhay ina maantana dhibaatadii aynu wadankeena dhexdiisa nabad baynu haysanaa waxaad ogtihiin qarannimadan maanta aynu haysano iyo waxaad social media ka leedihiin rag baa wali jiifo maxay tolo guryahoodii oon mahadsanid la oran oo maxay tolo lafahoodii iyo dhigoodii maxay tolo midqirkoodii uu dhinac ka socdaa marka dadkii maanta waxa doonaysan inaad qadiyada ku dagaalamay inaad maanta social media wax walba ka tiraado ku saamaxay inaad maanta hadana isku dul qabsataan oo qabyaaladu kala baxdaan oo reeru kala baxdaan oo ku weerartaan maxay tolay qof qarannimadiisii jecel oo waxba geysan waxaan u arka waxa la yaalo wuxuu inankaasi yiri ma jirin 5 jeer buu ga duceeyay maxay tolay mashrixi haasna wuu qaaday wuxuu kala sameeyay la maxay tahay laakiin in maaragtay maxamed biike wax ka badan bay noo saaran waad arkayseen ninkii gudoomiyaha gobolka Banaadir finish wuxuu yiri dad muhiim baa lagu waday buu yiri maxay toolayeen la waday buu yiri in qarax lagu qarxiyo 150 qof hala ku dhintay dad Soomaaliyeed bay hayeen oo xamar u dhasho xamar ka soo jeeda miyaanay muhiim ahayn waayo dadka kale muhiimka ahayn uu sheegay waayo farmaajo leey waa muhiim ma khayr leey muhiim haye marka dadka dhintay muhiim ma kala ma eegin maxamed biika codsado yiri walaalo ay dad walaalaynu nahay maxay tole nasiidaya ayaa inta soo bumbuunin iyo habaar iyo ay ka dhacday oo waliba ugu sii darnaan dadka reer Somaliland oo ka wada xumaadeen oo inankii la weeraray oo in aanay ka aamusin oo la muujiyay maxay tole in dhibaatada meesha ka dhacday laga wada xun yahay maad ku tixgelin weydaan inta waxa soo umada 4 milyan oo Somaliland cid waliba maxay tole waa u ducaysay waana laga xumaaday maxamed biike ma waxad garan weydeen hadduu isagu hadalka adibsateen uu ka soo baxay ku tixgeliya inta kale dadka sheekh iyo shariif waxa ay Somaliland ku dhacayso wad arkaysaan dhalinyartiini soo sameeyay farmaajo lacagta soo siinaya social media laga masruufo ee laga caayayo waxa weeyaan waa arin aad iyo aad u qaldan dadka reer Somaliland ha isku noqdaan maxamed biike hal raali galiyo TV-ga Universal na waxa weeyaan dhug ha loo yeesho Universal nimanka wariyaasha kula dhaxdhaxaad baanu nahay iyagoo sheeganaya dhaxdhaxaad calanka Soomaaliya halkaas ku sitaan hadana Faysal Cali Waraabe wareystaan Samatar bay wareystaan maxay tole nin aliyaala ninkii maark reer Somaliland way wareystaan ay soo doontaan waayo anigu kuma calankaaga fur dhaxdhaxaadna waad sheeganaysaa inaad hoos gelinaysaa marka ka baxdaan ayaa la arkaa maxay tole la arkaa in cusurnimada iyo xagjirnimadeedu ku jirta marka waxaan Universal ama integration samee ama dawladda Soomaaliya lacag ku siiso ama Fahad Yaasin lacag haydi siiyo wax aliyaalo wax qarannimada Somaliland aad ka qaadi kartaan iyo bulshadeeda midna ma jirto
in yar oo wax ma garata ah ayaad adeegateen intiina maanta waa inta maxamed siciid biike hadalkiisii bedeshay ee miidiyaha soo fadhiisisay aad baan uga xumahay maxamed siciid biikana waa inankaygii maxay tolo ilaa maalintii aan isbaranay ilaa maalinka ma ay u sogsan yimiday calanka Soomaaliland saas uu sitay muusana uma soo dhiibin maxay tolay cid kale uu dhiibina garashadiisa aqligiisa ayuu ku keenay dhulkiisa dadkiisa jeclaado marka waxa weeyaan dadka reer Soomaaliland هو حبسي ما هالبالسيس حبسدا حتى هديبه وإنك هذا وكدعي وحنا تيفي قرن بينه لأنه محوك دوم محلوجي تيفي يونيفرسال محلوجي يونيفرسال قرن مدى السومالي وكسور كذا وأنا عضهاي مركا حويا وإن العقل السوسي مشروع كو قادتي مشروع أنا قفل بو أوجيها إن مارتي لقصة مصروفه العقل لقصة درو إيه مكنا وحل الدنيا محمد سعيد بيكا هادو حمر تغو أماني ما يعني ويدين كوغا يربو حكايلان علي دانتو هذا كذا وحكايلان وكأرض كتجي محي تولين إن تيجي تشوغا محسمية مركا حويان ورسومالي نمو ولا وياهي لكن ولا كليه سومالي وانو نهاي لكن ولا كليه عرب ولا كليه هاي ما أنا لو خوخنا دتك ماري إليتك Somaliland إن سومالي وين ماذا سومالي وين يا رادين يا دوناي أو يا شيء وهاي دتك سومالي وين راديناي علم كودي بلا شروط لان حمر كوجي إذا كان قرني ينبى محيطولي odayga gabaygiisa iyo sheekadiisa taariikhdiisa dib ugu noqda ha lagu noqdo marka waxaan dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan leeyahay xishooda qofkiina wanaagsan hadduu maalin qalad ka dhaco ha ku ururina sida shinnida ha ku ururina maxamed biika waa lagu ururay waxaana maxaa la yiri gudaha imaad goyseen haddaan barkay kugu jirin ragga maanta mashruuca maxamed biika mashruuc ka dhigtay xamar telefoonada lagala soo hadlay اللي يريم حي تولي حمر بان كوكينينا ايه كان قصة قرن نين فنان سوماليات نقو قار سومالي ولا يوان اللي كليها دي بالله يسوقون نقضو محمد سعيدنا وحال كان فرين ومرين يا تدكاقوي كوتشعلين دولكاقوي كوتشعليا هنقن محي تولي أوركي هريدي سعناي هنقن حماتي دادكانو سمينيان عفا وإيه رفر كتيرسا هاو تشلعن بانكور هاو تشلعن كوغمان وغن تشلع هاو تشلعن تنسى ما انت